السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام دمانتين أهوبنا عافمات قبطان إن شاء الله بإذن الله ريمو حربينا ندين سيو وونين ير أما دقنين هبساو تقنين ويقو روحان كسون نقولي سعودية عمره الحمد لله وحيابها عن السعودية كو أركي الحمد لله ودن بركة سنم عيسان إلى الحمد لله لكن ومركي ستحادان تقو السعودية عمره waxyaabaha ugu daran oo ugu adag kolba aniga aan arkay haddii aadan luuqadda carabiga aqoon waa struggle dadka dukaamada intooda badan luuqadii ma yaqaanaan tagsiilayaashii waa aad ayay sacuudiga ugu adagtay luuqad kale english inay kugula hadlaan ama maba yaqaanaan sida imaaraadka oo kale maaha maasha allah imaaraadka uma baahata inay saxtaan inaad carabi ku hadasho laakiin sacuudiga dukaan noqotay yaa tagsiila noqotay waa struggle waxaa dhacday jidda markii aanu ka degnay airportkii aanu rabnay inaan tagsi qaadano airportka meesha waxaa taagnaa niman sacuudiyaana dee khamiisadii sacuudiga khamiis baa la wada xidhaya oo sacuudiyiina tagsi maad rabtaa waasaa lagugu soo kala haadayaa kabacdi maadaama annaga aan carabi garanayn waxaanu aakhirkii waxaanu heshiinay mid xoogaa afartoo ingiliisha jabsanaya wuxuu nagu ballantu ahayd inuu naga qaado maka wuxuu yidhi tagsiilaanahay inuu naga qaado jidda wuxuu yidhi tagsiilaanahay oo toos noo geeyo maka inuu jidda naga qaado maka toos noo geeyo okay alxamdulilah waa soo baxnay markuu saa airportkii nooga soo qaaday oon airportka wax yar kasoo soconay magaaladii wadadii ka baxay xaggaad ku socota gas station halkaa taagan buuna istaajiyey tagsiila halkan taaganoo lambarkii tagsiilanimada ku qoran tahay isagu markaa gaari aan tagsi waxba ku qornayn barda markaanu gaarigiisana gelinay xataa waanu yaabna waxaan nidhi ha sharci buu la soo baxo yiri waan sharciyeysanahay dee miyaan waddanka kala naqaanaa waa iska soo baxnay tagsiilihii buu noo geeyey waa qaracnay annaga waay hooyaday waayeela baanu wadanaa xanuunsanaysaa annaga dumar baanu nahay calaa kulli xaal ninkii annagoo muraara dilaaca ninkan tagsiilaha buu nagu wareejiyey tagsiilihii baana qaaday oo makana geeyey tagsiilihii nin bakistaaniya buu ahaa waanu sii wareysanay what's going on baan ku maxay tahay wax kan wuxuu yidhi nimanka kan waa sacuudiyaan dhalada airportkana iyagaa ka shaqeeya waa mukhalisyo airportkay kaa soo qaadayaan kuwan oo ay la ballameen ayay kuu geynayaan kaba soo qaado kale 300 riyaad baad kula soo ballantay isaga ninka kan meesha taagan ama 100 ama 150 buu siinaya inta kale isaga qaadanaya dib buu u noqonaya qof kale ayuu saas soo qaadaya odhanaya anaa meel hebla ku geynaya ma geynayo isagu qof kale tagsiilo kale meel taagan uu la ballamay oo ajnabiya ayuu u geynaya meeshana ajnabigu ma geli karaan qaybta dhinacaas tagsiilaha sharciyeysan laakiin waxaan kaloo soo ogaanay tagsiilaha sharciyeysan oo levelka ugu hooseeya inay joogaan haddaad hoos u daadegtid lawr levelka aad tagtid tagsiilayaashii sharciga lahaa baa joogan laakiin qaybta nimankan mukhalisiinta baa joogta laakiin inagu qofkan luuqadda garanayn waddanka garanayn ma garanayo soo fadlan walaalayaalo waa iga digniin qofkii cumro aadaya qofkii jidda aadaya oo aan luuqad aqoon especially dumarka ama anybody oon luuqad aqoon oo meesha aadaya halays ilaaliyo annaga wax kasta waa nagu dhici karayaan hooyaanu wadanay ninkaas waa na dili karayay meel cidluu na geyn karayay special markaa dumar tahay qurbo aad ka timi lagu arko inaanad luuqadda aqoon wax kastaa dhici karaya sacuudiga dhibaatooyin aad u badan ayaa ka dhacda qisooyin aad u badan oo xataa gabdho ku dhacay baa laga sheekeynayay soo waddan ammaana waaye maasha allah laakiin sidoo kalena waxyaabo badan ka dhacaan marka fadlan ha la is ilaaliyo digniinta qof kasta u dira airportka haddaad tagtid nimankaas waa mukhalisiin waa sacuudiyaan kuma geynayaan meeshaad u socotay qof kale ayay kugu darayaan wax kastana waa dhici karta ma ogid meelay ku geynayaan because dad sharciyeysan maaha iyagu laakiin levelka ugu hooseeya haddaad tagtid kuwa sharciyeysnaa baad arkaysa waxaan kaloo soo ogaanay tagsiilaha sacuudiga oo sharciyeysan ama lambar ha ku qornad ama yaanu ku qornayn taarikadiisa gaariga taarikada ku taala gadaal wuxuu leeyahay calaamad yellow ah haddii aanu calaamadda yellowga ah lahayn gaarigaas ma sharciyeysna waad la gorgortami kartaa ama ha lahaado calaamadda ama yaanu lahayn laakiin ma sharciyeysan laakiin markay sharciyeysan yihiin khalad ma geli karaan waa la ogyahay lambarkoodaad haysataa meel walba camera ku taala laakiin qofkii aan sharciyeysanayn ood soo raacday xaguu ku geynaya ma garanaysid yaa garanaya qofku qof weeye soo fadlan walaalayaal ha la is ilaaliya annaga way nagu dhacday laakiin alxamdulilah waxyaabo badan aan soo ogaaday waxyaabo badan aan ogaaday wax kuwa sharciga siday yihiin xaaladooda soo insha allah bidmillaah kale is ilaaliya waddankan haddaadan luuqan aqoon dhibkiisu waa badan yahay dhib badani ma jirto alxamdulilah laakiin waxaa jirta is afgaran waa soo insha allah bidmillaahi kariin waxaan u rajaynaya qof kastoo taga in ilaahay subxaana watacaala meel kastaynu joogno ina xifdiya una sii gudbiya dadkeena waddanka aaday because aad baynu hadda cumradu aadnaa waddankiina ma garanayno dhaqankiisii iyo afkiisii haddaynu inteena badanoo af carabiga aqoon insha allah bidmillaahi kariin asalaamu calaykum